السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركل السوداء واضح أدي هذا ومهتسنتين. قال كانوا حربا إن نذكر وذاقه هجاميه عزباء إيران مجتبى قمني أي صاحد لي قرال وصاقري أي تي في ودن كإيران لقى أقريي محوك يري دجال كأمريكان كيهودا أي إيران أي كوقادين محوس كيري سفارة أمريكان كل هاي بريجة دحى مرين كهرمس arrimahaasi oo idil shacabka isagoo la hadlay iyo waliba ciidamada Iran muxuu ka yiri ayaan idil socodsiin doona. Dhinaca kale waxaa jirtay in dawladda hoose ee Minneapolis ay toddobaadkii hore meel mariyeen muddo 60 maalmood ah oo hakad la gelinayo in dadka guryaha laga saaro maadaama howlgalkii ciidamada ICE ee Operation Metro dad fara badan aysan shaqadii aadin ama shaqooyinkoodiiba la xiray oo kiradii ay iska bixin waayeen. Arrintaasi waxaa veto saaray maayarka magaalada Minneapolis isla markaana qorshe cusub ayuu soo jeediyay oo dadka lagu caawinayo kirada looga bixinayo. Sidoo kalena aqalka sanadka ee gobolka Minnesota iyaguna lacag 40 milyan shalay meel mariyay oo la doonayo dadka in kirada looga bixiyo. Arrimahaasina waan idila socodsiinaya balse marka hore soo dhawaada. hogaamiyaha cusub ee Iran Mujtaba Ali Khamenei oo axadii ay doorteen golaha quburada isla markaana ayba Mareykanka iyo Yahuudda ay dhahayeen ninkaasi ma noola oo waa dhintay oo nin dhintay ayaa la caleema saaray ama dhaawac halis ayaa gaaray ayaa soo hadlay laakiin ma ahan inuu muuqaal iska soo duubay ama isagu codkiisa uu ku hadlay qoraal uu soo qoray ayaa TV-ga wadankaasi Iran laga akhriyay waxaana qoraalkan uu ahaa qoraal hadda wadamadii waa dagaalka ku qaaday Iran la yaab lay noqonaysa isla markaana hanjabaado cusub ay ku jiraan marka hore geeridii aabihii iyo qaar kamid ah qoyskiisa xaaskii iyo hooyadii iyo ku jiraan ayuu ka tacsiyeeday waxa uu yiri aabihii waxa uu ahaa hogaamiye wadankan in badan soo hogaamiyay wax badanna u qabtay taariikhduna ay xusi doonto waxa sidoo kale fariintiisa oo 20 daqiiqo ahayd mid kamid ah wariyaasha warka ka akhriya telefishinka Iran uu ka akhriyay marka hore waxa uu ku baaqay midnimo qaran oo shacabka Iran ayaa waxa ugu baaqay midnimo qaran waxana uu yiri gardaradana la ku soo qaaday waan ka guuleysan doonaa arinta la yaab kale oo sicirkii shidaalka hadda cirkaasi ku shareertay oo fuustadii $100 ee hadda gaartay waxay tahay waxa uu yiri marinka Hormuz waa uu sii xirnaan doonaa taasina waxa uu cadaadis ku saaraya wadamada Mareykanka uu kamid yahay iyo sidoo kale wadamada caalamka maxaa yeelay 20% shidaalka caalamka u kala goosho marinka Hormuz ayuu soo maraa shalay waa kuwii 3 markab ku weeraray marka waxa uu yiri marinkaasi waa sii xirnaan doonaa isla markaana markab kasta oo isku daya waan bartilmaameedsan doona waxa sidoo kale la hadlay wadamada bariga dhexe ama khaliijka waxa uu ugu baaqay inay si degdeg ah ku xiraan xarumaha saldhigyada military ee Mareykanku uu ku leeyahay wadamadaasi waxa uu yiri hadii kale waan soo weerari doona inagu waan rumaysanahay uu yiri saaxiibtinimada gobolka laakiin waxa uu yiri hadii saldhigyadaasi ay sii jiraan waan bartilmaameedsan doona arintaasi oo hadda wadamada bariga dhexe ay runta qaraar ay arkeen isla markaana xitaa gantaaladii Mareykanku uu yiri waan ku difaacaya inta uu ka soo qaaday uu keenay Yahuudda uu keenay isla markaana uu ku difaacayay iyagina hadda meel cidla ay ku soo dhaceen marka ma xiri doonaan saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay wadamadaasi bariga dhexe iyadana sidoo kale waa la ogaan doonaa sidoo kalena waxa uu sheegay xitaa in kooxaha taageersan Iran ee jooga Yemen iyaga nafsadahantooda ay diyaar u yihiin shaqadaasi inay qabtaan macnaha inay bartilmaameedsadaan saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay in bariga dhexe waa uu sheegay sidoo kalena waxa uu la hadlay kooxaha kale ee hubeysan oo taabacsan in Iran oo Iraq ku sugan iyaguna waxa uu yiri sidoo kale waa ay doonayaan inay caawiyaan isla markaana kacaankan islaamiga ay caawiyaan sidoo kale Mujtaba Khamenei waxa uu sidoo kale sheegay in militariga ayuu la hadlay in Iran uu u mahad celiyay waxana uu sheegay in ay joojiyeen oo ay hor istaageen in wadankaasi la kala qaybiyo ama sidoo kale la baabi'iyo xilli wadanka weerar lagu soo qaaday ay u istaageen oo yiri ay difaaceen marka wuxuu yiri gaalyahanada geesiyaasha ah wuxuu yiri shaqo fiican ay qabteen xilli wadankeena ay cadaadis oo saarna isla markaana weerar lagu soo qaaday arintaasina uga mahad celiyay wuxuu yiri waan sii wadi doonaa waxa uu sidoo kale ballan qaaday in dagaalkan uu sii socon doono
doono. waxa uu yiri dagaalkan inagu ma aanan bilaabin mana joojinayno, waa nala soo weeraray, waa nala ku soo xadgudbay, dagaalkanna waan sii wadi doonaa ayuu yiri oo ma joojin doono. marka waa hadalkiisii ugu horeeyay ama fariintiisii ugu horeysay soo diray ilaa iyo markii axadii la doortay. aad ayaa hadda warbaahinada caalamku ay u falanqeynayaan arrintan oo ay maadaama uu yiri dagaalkana ma joojinayno, marinka Hormuzna waa uu sii xirnaanaya. waa labada arrin ee ugu muhiimsan, iyo in wadamada bariga dhexe ugu baaqay saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay bariga dhexe inay iska xiraan, haddii kalena weeraradaasi markastaba aan bartilmaameedsan doono ayuu yiri. marka aabihii waxaan ognahay 28kii bisha ayaa Yuhuuddu ay duqeyn ku dileen markii Mareykanka iyagu dagaalkan ay bilaabeen. 37 sano ayuuna wadankaasi uu soo hogaaminayay. dhinaca kale Minnesota waxaan ognahay hadda howlgaladii ciidamada ICE meesha waa ay ka baxeen oo inta badan ciidamadii waa tii laga qaaday. dad fara badan marka intii howlgaladaasi ay socdeen shaqooyinka aan aadin ama cabsanayay ama sidoo kaleba shaqooyinkoodii la xiray. marka dad fara badan ayaa 2 ilaa 3 bilood oo kiraah lagu leeyahay. dadka guryaha iskalena guryaha dadka waa ay ka saarayaan oo eviction wax la yiraahdo ku sameynayaan haddii kirada ay bixin waayaan. toddobaadkii hore waxaa jirtay xubnaha dowladda hoose ee Minneapolis inay u codayeen in muddo 60 maalmood lagu kordhiyo in aan dadkaasi laga saari karin guryaha. waxaana loo baahnaa in maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey uu ansaxiyo, laakiin shalay ayuu veto saare waa uu diiday. sharcigaasi xubnaha dowladda hoose waxa uu codaysay 7 xubnood, 5na waa ay diideen. madaxweyne ku-xigeenka Jamaal Cusmaan ayaa ka mid ahaa xubnaha taageeray, isla markaana maayarku veto ayuu saaray. laakiin shalay waxa uu soo jeediyay in lacag $1 milyan oo degdeg loogu caawinayo dadkaasi kirada looga bixinayo. isla markaana sidoo kalena urur aan faa'iido doon ahayn oo Wilson Foundation la yiraahdo ayaa iyaguna waxay yiraahdeen $1 milyan oo kale ayaan ku dareynaa. marka labadaasi milyan dadka in kirada looga bixiyo, degmada Hennepin ayaana lacagtaasi maamuli doonta. marka arrintaas waxa looga baahan yahay marka xubnaha dowladda hoose oo hadda in ay iyaguna ansaxiyaan. marka arrintan ayaaba dhaanta waxa uu leeyahay maayarka in dadka loo kordhiyo muddada aan guryaha laga saari karin waxay ku sii kordhinaysaa lacagta kirada. marka waxa uu leeyahay qorshahan ayaa ka fiican in lacagtan la ansiiyo dadkaasi si kirada ay isaga bixiyaan. marka hadda xubnaha dowladda hoose ayaa laga sugayaa inay meel mariyaan. haddaba waa kan maayarka oo arrintaasi ka hadlaya, isla markaana dhahaya dadkan waxay u baahan yihiin in kirada laga bixiyo, laakiin uma baahna in muddo kordhin loo sameeyo oo aan guryaha laga saari karin. maxaa yeelay lacagtii weli waa looga baahan yahay, dadkii guryaha iska lahaana way uga baahan yihiin. But when you move forward with these eviction pauses, what happens is that people just incur more debt. They find themselves in a larger hole than they're able to pull themselves out from. And as soon as that moratorium or pause ends, a ton of people get evicted. Still do. That's exactly right. And so, we are trying to do what actually does good, not just what sounds good. And we know that emergency rental assistance, there's broad agreement on this, helps people get through a tough time. sidoo kalena St. Paul iyaguna sidoo kale sameynayaan lacag $1 milyan oo dollar ay ugu tala galeen dadka guryaha iyaguna in kirada lagu leeyahay. laakiin aqalka sanadka ama baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa labada xisbi shalay iyaguna waxay ansixiyeen lacag $40 milyan oo la doonayo in degdeg dadkaasi in kirada looga bixiyo. marka sharci la yiraahdo 35-96 ayay u codeeyeen, labada xisbina waa isku raaceen. waxay yiraahdeen dadkan waxay u baahan yihiin in kirada laga bixiyo maadaama howlgalkii Metro Surge uu saameyn xoogan ku yeeshay dadka degan magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul iyo waliba kuwa ku hareeraysan. haddaba mid ka mid ah senatarada ayaa saaka warbaahinta la hadashay, isla markaana sheegtay in labada xisbiba ay isku raaceen lacagtaasi 40 milyan in lagu caawiyo dadka reer Minnesota, isla markaana kirada looga bixiyo. waana tan iyadoo ka hadlaysa. I am Senator Lindsay Port. I represent Burnsville and Savage in the South Metro. Yesterday, the Minnesota Senate showed up for Minnesotans. We passed $40 million in emergency rental assistance as a bipartisan vote off the Minnesota Senate floor. For renters who are being pushed to the brink by the rising cost of food, gas, utilities, healthcare, this support can be the help they need to get back on their feet. dhinaca kale maalmahan waxaa laga digayay in saameyn dagaalka Mareykanka iyo Yuhuudda ay ku qaadeen Iiraan gudaha Mareykanka uu saameyn ku yeesho. hadda kaniisad ay Yuhuuddu leeyihiin oo synagogue ah oo ku taala magaalada Bloomfield oo Detroit, Michigan aan ka fogeyn ayaa maanta nin gaari wato oo weeraray. gaariga ayuu ku dhuftay albaabka kaniisadda, kadibna waa uu dhintay. ninkan gaariga waxyaabo qarxamiya u saarnaa, lama oga rasaasna waa uu furay ayaa la leeyahay. xitaa iskuul
caruureeda wax ku baranayeen ayaa kaniisadda ku dhex yeelay laakiin booliska oo hadlay waxay sheegeen in asna qofka weerarka soo qaaday oo kaliya uu geeriyooday in isagu isdilay iyo in la toogtay lama garanayo waxaana sheegeen qof kale oo waardiyaasha kamid ah oo gaariga oo ku dhuftay oo kaliya dhaawac inay ka soo gaareen dadkii kaniisadda ku jiray ama caruurtii iskuulka dhiganaysay inaysan waxba soo gaarin hadda qatartu aad ayay u badan tahay xitaa Oscarska oo lagu qabanayo California waxa la leeyahay Iran drones ayay ku soo weerari karaan oo ammaanka aad ayaa loo adkeeyay oo inta badan abaalmarinada lagu bixiyo filimada iyo sidoo kale xidigaha jilayay oo la filayo in la qabto toddobaadkan dhamaadkiisa marka qatartu wali FBI-du waa ay ka digaysaa iyo wasaaradda amniga gudaha laakiin ammaanka aad ayaa loo adkeeyay meelaha kaniisadaha yuhuudda ay leeyihiin masaajida meelaha tareenada laga raaco iyo guud ahaanba meelaha muhiimka maadaama qatartu ay badan tahay oo laga yaabo shakhsiyaad ka careysan dagaalkaasi Mareykanku uu ku qaaday Iran in ay ka sameeyaan howlgallo dad ay doonayaan inay ku dilaan gudaha Mareykanka waxa la leeyahay xitaa ra'iisul wasaarihii Israa'iil Netanyahu waa la leeyahay muddo dhowr maalmood ama uusan soo hadlin waxa sidoo kale leeyahay xubnahan idin muuqdo oo sirdoonkii iyo sidoo kale in wasiir uu ka mid yahay in ay dhinteen ayaa la sheegaya waxa la leeyahay Netanyahu ma dhintay mise waa nool yahay wax warbixina laga mahayo in maalmahanba warkiisa lama helin maadaama duqeynta ay Iran ku wado ayna magaalooyin kala duwan oo wadankaasi in Israa'iil waxyaabaha kale soo kordhay hadii alla idmo waa idila soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo